dowladda federaalka iyo dowladda maxaa ku maamul goboleedyada way tashigii labadii maalmood ee la soo dhaafay ugu socday wuxuu ku dhamaaday guul saad maqasheen waxaan isla gaarnay inaan ka shaqeyno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah inaan u shaqeyno Soomaalinimada inaan u shaqeyno waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno waxaan ku heshiinay dibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaalan lahayn ummadda Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn waxaan ka wada hadalnay arrinta ugu culus oo hadda haysata abaaraha oo Ilaahay aan ka baryano inuu naga dulqaado waxa keena abaaraha qayb ahaan waa colaad marka haddaan ammaanka xalino waxaan aaminsanahay colaadaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo faqriga dhibaatada Soomaaliya haysta inaan xal ka gaari karno waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno inaan garbaha isqabsanno gacmaha isqabsanno ee ummadda Soomaaliyeed aan u shaqeyno dan shakhsi ah dan gaar ahaanin aan ka tagno bacdama ay ummadda Soomaaliyeed kulligood la soo wada eegayaan inaan xal u keenno waxaan ku heshiinay hawlgallada si degdeg ah inaan u bilaawno oo ummadda Soomaaliyeed abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiino aan isu diyaarinno qolada nabadiidka ah aan isu diyaarinno sidii meelaha ay haystaan oo ay ummadda ku dhibaateynayaan aan uga dulqaadno beesha caalamka marka beesha caalamku waxay raadinaysaa waxay tahay annaga inaan xalki keenno haddaan Soomaalinahay cid kale oo noo keenaysa xal ma jiraan cid kale oo dalka noo difaacaysa ma jiraan cid kale oo dhaqaale noo keenaysa ma jiraan waxa weeye waxaas oo dhan waxa laga rabaa waa annaga iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo taageera dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyaguna waad mahadsantihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inay Soomaaliya dhibka ka baxdo waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu duceynaynaa in abaarahan iyo colaadahan Ilaah ka dulqaado shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gacan iyo garab nagu siiyaan maxaa yeelay waxaan ka shaqeynaa dantooda guud iyo ka shaqeynaa dan gaar waa ka tagnay madaxda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ayaa kulan wada tashi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho intii u dhaxaysay 15 iyo 16 bishan Abriil 2017 kulankan ayaa diiradda lagu saaray abaaraha ka taagan dalka dib u habeynta hanaanka guud ee heerarka kala duwan ee hay'adaha amniga qaranka la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah iyo dhammaan ururada argagixisada caalamiga ah waxa kale oo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka kobcinta dhaqaalaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada shirkan labada maalmood socday qodobadii ka soo baxay waxa ka mid ahaa madaxdu waxa ay walaac ka muujisay xaaladda abaarta ee ka sii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan madaxdu waxa ay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadba iyo beesha caalamka madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdeg ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geedi socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhaxaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadi'da dib u heshiisiinta waxa ay dhiiri gelinayaan wada hadalka dowlad goboleedka Galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca madaxdu waxay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hanaanka loo marayo hirgelintiisa
taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka. madaxdu waxay ansixiyeen qaab dhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. madaxdu waxa ay sidoo kale go'aamiyeen dhismaha golayaasha amni ee heer dowlad goboleed oo ay guddoomiyeyaal u yihiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada. madaxdu waxay isla garteen in si degdega loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo midaysan kaasoo lagu furayo waddooyinka halbowlaha u ah isku socodka dalka iyo xaqiijinta gaarsiinta gargaarka abaaraha ee dadka abaaruhu ay saameeyeen bacdamaa ay kooxda argagixisada ee al-shabaab iyo kooxaha nabaddiidka ah ay isbaaro u dhigteen in dadkaasi gurmad la gaarsiiyo. madaxdu waxay isla garteen in si degdega loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo midaysan taasoo lagu furayo waan ku celiyo qodobka. madaxdu waxay isla garteen in si dhaqso ah loo bilaabo loona dardargeliyo qorshaha hannaanka geedi socodka doorashada ee 2020. madaxdu waxay isku raaceen in kor loo qaado kobaca dhaqaalaha, dakhliga, shaqo abuurka, dhiirigelinta maalgashiga iyo ganacsiga iyo weliba horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. madaxdu waxaa kale oo ay isku raaceen in muhiimad gaara la siiyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo la adeegsanayo habab casri ah oo lagu ciribtirayo. madaxdu waxay soo dhoweeyeen qorshaha horumarinta qaranka National Development Plan iyo mudnaantiisa. waxayna isku raaceen in la sameeyo tirikoob dhab ah. waxaa kale oo la isla gartay heshiisyada iskaashiga cusub New Partnership Agreement. madaxdu waxa ay rajaynaysaa in beesha caalamku taageeraan go'aamada iyo qorshayaasha ay dowladda Soomaaliya mudnaanta gaarka ah siinayso. ugu dambayn waxa ay madaxdu uga mahadcelinayaan beesha caalamka taageerada joogtada ah oo ay la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed.